bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal dhammaantiin kula soo dhawaada warkii oo idinka soo gudbina telefishinka qaranka Soomaaliland xaruntiisa magaalada Hargeysa warka waxa idin la socodsiinaya aan Muuse Warsamo Guuleda qodobada warkeena u doorano waxa kamid ah madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaayo ayaa taasi u diray halkii qaraabadii qoyskii iyo shacbiga Soomaaliland isagoo ka tacsiyeeyay geerida ku timid Allah u naxariistay Maxamuud Axmed Barre Garaad wasiirkii hore ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada oo ku geeriyooday magaalada Boorame ee xarunta gobolka Awdal wasiirka khayraadka biyaha Mudane Baasha Cali Jaamac ayaa dhagax dhigay cilbiyood cusub oo laga hirgelinayo degmada Arabsiyo ee gobolka Gabiley kaasi oo dadka deegaanka baahi weyn u qabeen tartanka xifdiga quraanka kariimka ah oo sanad kasta la qabto bisha Ramadaan ayaa si rasmi ah uga furmay masaajidka Cali Mataan ee magaalada Hargeysa xildhibaanada golaha deegaanka ee magaalada Boorame ayaa kalfadhi aan caadi ahayn oo ay yeesheen waxa ay ku doorteen gudoomiye cusub fadhigaasina waxa gudoominayay barasaabka gobolka Awdal Maxamuud Cali Saleeman Ramaax intaas waa qodobada warka haatana warkii oo fidsan madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaayo ayaa taasi u diray halkii qaraabadii qoyskii iyo shacbiga Soomaaliland isagoo ka tacsiyeeyay geerida ku timid Allah u naxariistay Maxamuud Axmed Barre Garaad wasiirkii hore ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada oo ku geeriyooday magaalada Boorame ee xarunta gobolka Awdal inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun taasidan madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland oo ka soo baxday xafiiska afayeenka madaxtooyada Soomaaliland ayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Axmed Maxamed Silaayo waxa uu taasi u diray waayeelka waxgaradka qoyskii eheladii qaraabadii asxaabtii iyo guud ahaan shacabka Soomaaliland isagoo ka taasideynaya geeridii ku timi Allah u naxariistay marxuum Maxamuud Axmed Barre Garaad oo ku geeriyooday gobolka Awdal magaalada madaxdiisa Boorame madaxweynuhu waxa uu marxuumka ku sifeeyay aqoon-yahankii iyo waxgaradkii kaalinta mugale ka soo qaatay dhismaha iyo taabagelinta qaranka Soomaaliland waxaanu kamid ahaa buuri madaxweynaha Soomaaliland siyaasiyiintii iyo haldoorkii hogaamintiisu tusaalaha fiican ay u ahayn jiilasha soo kacaya waxaanu ahaa buuri madaxweynaha Soomaaliland oday qaran oo ka baxay dalka iyo shacabka Soomaalilandba isagoo muddo dheerna kamid ahaa xubin sharafeed golaha guurtida ka tirsan muddooyinkii u dambeeyayna kamid ahaa golaha wasiirada madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Axmed Silaayo waxa uu marxuumka Allah uga bariyaa inuu naxariistii jannatul firdaws ka waraabiyo waayeelka waxgaradka qoyskii eheladii qaraabadii asxaabtii iyo shacabka Soomaaliland ee uu ka baxayna uu samiriyay iimaan saadiqa ka siiyo inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun إنا لله وإنا إليه راجعون الله ونحرسته وحمانته عسكرا لوغو سميي مغالada Boorame ee xarunta gobolka Awdal wasiirkii hore wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada marxuum Maxamuud Barre Garaad aaska wasiirkii hore shaqada iyo arrimaha bulshada ayaa waxa ka soo qayb galay madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland qaar kamid ah golaha wasiirada ee Jamhuuriyadda Soomaaliland salaadiin culimaadudiin waxgarad iyo bulshada qaybaheega kala duwan marxuum ayaa waxa lagu aasay xabaalo ku yaala galbeedka magaalada Boorame marxuumka ayaa waxa uu kaalin aad u weyn ka soo qaatay oo firfircoon Jamhuuriyadda Soomaaliland sidii ay u gaar lahayd horumar mas'uuliyiintan aaska ka soo qayb galay ayaa waxa ay ka sheekeeyeen taariikhdii qotada dheereed ee marxuumka Allah u naxariistay iyo waliba kaalintii lixaad kale ee uu ka soo qaatay Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaana kamid ahaa dhamaantood sida tan maanta aan joognaa aaska Maxamed Garaad oo nin weyn oo runtii maanta Soomaaliland ka baxay waxaan ummadda reer Soomaaliland ka tacsiyeynaa iyo qaraabadii iyo ehelkii ka tegayba
إلهي سمري وأنا قصي لما أنتبه سنا إلهي ما في جنة دي وكورابيو قبل إلهي واسعيو إلهي ما بزيد ومشى سوش النوارين ما تفوتي بتي إلهي ما تبان ونحسن كذا ولا ودو أيام لين هاي وهي يوماتي ما تلبسون مري يوماتي لقي وريا شيء قبل قيمها قبلها أيام سمعنا قبل ما كلها ما سوف يبقى أسكيس يصير مقولين قاعدين يصير على لا نحسنا وإنا إليه راجعون محمد أحمد بره قرات الله الحرسته قيمي يسوع يتاريخ ديسا والله شاقي حن الله وقبريه ehelkiisii qaraabadiisii iyo dhammaan ummadda muslimka iyo ummadda Soomaaliland ilaahay sabr iyo bariir ilaahay qabriga inuu waasiciyo ilaahay dambigiisa inuu dhaafo waxaan Ilaahay ninkii caloosha wuxuu hayo saamaxnaakum wuxuu ahaa taariikhiyaan wuxuu ahaa nin culum badan ay ku duugan tahay ilaahay waxaan uga bareenaa inuu naxariistii janno ka waraabiyo ilaahay waxaan uga bareenaa inuu naxariistii janno ka waraabiyo شعبك الصومالي يهردي وكبحين السمرية إيمان كسير إنا لله وإنا إليه راجعون. ساون حريص الجلال سلام الشيخ من تدوينها حريص الجلال كاني دكتور كمثل رئيسين كيري كويني عاقل يوران له اسمه مدوها ساين نغو ري وين ندعينا الله نحريص كان شيغنا ابوان بوها تاريخ geerida ku timi qaraad ilaahay subhanahu wa ta'ala qaraabadii iyo qoyska ka tagay qaranka Soomaaliland sabriiban xasiyo garaad wuxuu ahaa nin qiimo badan garaad wuxuu ahaa qaranka u soo adeegay ilaa bilowgiisii ilaa asaaskiisii wuxuu ahaa garaad qaranka golayaashiisa oo ka soo shaqeeyay sabriiban xasiyo geerida ku timid nin mudada soo shaqeynayay nin dalkiisa soo shaqeeyay dawladii hore iyo tan imikaba waxaa ka tacsiyeeyaa dhammaan ummadda Soomaaliland gaar ahaan gobolka Awdal oo howlo badan ka qabtay ilaahay naxariistaas iyo janno awrigana Allah u nuro wixii uu mudantay kuwii muslimiinta qalabkiis garaad wuxuu ahaa nin taariikh badan leh dadka gobolka Awdal laga xuso iyo Soomaaliland ku jira dadka ugu taariikhda badan garaad ilaahay naxariistiisa jannaha ka waraabiyo ehelkii iyo qaraabadii iyo asxaabtiina samiriye iimaan Allah ka siiyo nin wixii markii dambe dhismihii dalka raggii ka qayb qaatay buu runtii ahaa xukuumadda Soomaaliland buu kamid ahaa ilaahay naxariistiisa naxariisto nin weyn oo qiimo lahaa nin ummadda wax badan u soo qabto ahaa الله نحرسته إلى تركنا كتجنا سمري والله كسيو ما أنت بسمري والله كسيو ما أنت أقوى نشوف ناس كبرهم قراد أورنا أنتي أهليي كسوه الجمي قرن ماذا ذلك إلهي نحرستنا كونابي فيما ياسين موسى تلفزيون قرن كجمهورية الصوماليلاند مقالة بورما wasiirka khayraadka biyaha mudane baasha cali jaamac ayaa dhagax dhigay ceelbiyood cusub oo laga hirgelinayo degmada Arabsiyo ee gobolka Gabiley kaasi oo dadka deegaanka baahi weyn u qabeen sida warka noogu soo diray wariyaha gobolka Gabiley Nimcaan Dheeg Ibrahim wasiirka wasaaradda biyaha jamhuuriyadda Soomaaliland baasha cali jaamac oo weeliyaan maamulka gobolka Gabiley iyo degmada Arabsiyo ayaa si wada jir ah u dhagax dhigay dhismaha ceelka biyaha degmada Arabsiyaad oo guud ahaan bilow ah guddiga biyagelinta degmada Arabsiyo oo in badan ay sugayeen taasi oo maanta goobjoog ka ahaayeen mas'uuliyiin kala duwan oo hirgelinaya biyahaasi degmada Arabsiyo waxaana uu gooreen halkaasi la kooban ka jeediyay Cabdiwaahid Abdullaahi Culdoon oo mas'uulka caalami construction company ee hirgelinaya dhismaha biyahaasi degmada Arabsiyo oo tilmaamay ahmiyadda ay biyagelintu u leedahay Arabsiyo waxaa dadaal weyn ka geystay sidii biyaha magaalada loo soo gaarsiin lahaa dowladda jamhuuriyadda Soomaaliland oo madaxweynaha ka yahay Axmed Maxamed Maxamuud wasaaradda biyaha iyo hay'adda Islamic Relief shirkadahan anagoo shirkadda caalami construction company waxaanu ballan qaaday gudoomiyaha degmada Arabsiyo Cabdillaahi Cabdi Faarax
iyo cabdiraxmaan cali dafle oo halkaasi hadallo kooban ka jeediyay ayaa soo dhaweeyay biyogelintani aad loogu faraxsanahay alkalisir maanta inay maalin taariikh noqoto oo degmada arabsi ay u noqoto in ay noqoto maalintii koowaad dhagaxa la dhigo mashruuca biyogelinta magaalada ku xidhiidhin lahayd hawsheeda ku jirtay. waxaa kaloo aanu mahad balaaran u celinaynaa wasaaradda biyaha oo dhowr goor aan codsi u geynay ayaduna noo dadaashay oo dardargelisay mashruuca. sidoo kale kusimaha barasaabka gobolka Gabiley Cali Cabdi Cabdilaahi Cali Case ayaa isna halkaasi ka hadlay waxaana hadaladiisii kamid ahaa asalaamka bacdi sida uu sheegay gudoomiyaha degmada maanta farxad weyn oo ah in wasiirka kheyraadka biyaha iyo agaasimihii guud iyo maamulkii wasaaradda oo dhan nala joogo oo iyo hay-adda Islamic Relief wasiirka wasaaradda kheyraadka biyaha Somaliland Baasha Cali Jaamac oo halkaasi hadallo kooban ka jeediyay ayaa sheegay in gobolka Gabiley lagu guuleystay 100% biyogelintaasi waxaana hadaladiisii kamid ahaa gaar ahaan wasaaradda biyaha kheyraadka biyaha inaanu halkan dhagax dhigno biyihii ugu horeeyay ee pipe mara oo loo qaadayo arabsiyo dherarkeeduna yahay 5 kilomitir ceelkan halka laga qoday oo dherarkiisu yahay 110 mitir water levelkiisuna fiican yahay ilaa 65 mitir uu soo gaarsiisay. geesta kalena wafdiga wasiirka kheyraadka biyaha Somaliland waxay kormeer ballaaran ku tageen degmada Togwajaale gaar ahaan mashruuca biyogelinta degmadaasi oo ay soo indheeyeen. waa Nimcaan Deeg Ibrahim iyo Mixyadiin Maxamed Daahir TV qaranka Gabiley. xildhibaanada golaha deegaanka ee magaalada Boorama ayaa kalfadhi aan caadi ahayn oo ay yeesheen waxa ay ku doorteen gudoomiye cusub. fadhigaasina waxa gudoominayay barasaabka gobolka Awdal Maxamuud Cali Saleemaan Ramaax. kulan aan caadi ahayn ayaa waxa uu maanta u qabsoomay xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Boorama. kulankan ayaa waxa shir gudoominayay gudoomiyaha gobolka Awdal. kalfadhigan ayaa waxa uu maanta ka qabsoomay xarunta gobolka Awdal halkaasi oo lagu sameeyay wax ka bedel maamulka degmada Boorama iyadoo halkaasi lagu doortay laba mas'uul Maxamed Xasan Maydhane oo isagu loo doortay gudoomiyaha degmada Boorama iyo ku-xigeenkiisa oo isaguna loo doortay Cumar Ileeye. barasaab Ramaax oo kulankani furay ayaa ansixiyay sharciyada kalfadhigani aan caadiga ahayn. maanta ay taariikhdu tahay 24 bishan waxa maanta waajib qaran nagu noqotay ama waajib sharci noqotay in uu u soo wareego mooshinkii ay soo qorteen xildhibaanadu. mooshinka markii la soo qoray waxaan aad isaga hubinay in la gaarsiiyay maayar gacanta in laga saaray si sharciyan xafiiska ay ku soo galay loona gudbiyay wasaaraddiina ay soo saartay qoraalkaasi ay ku soo lifaaqday mooshinkii markuu gaadhay laftigeed. waxaa xalaaloobay gobol ahaan iyo wasaarad ahaanba inaan qabanno shirkaasi. kabacdina xildhibaanada ayaa gudagalay inay kalsoonidii kala noqdeen gudoomiyihii hore ee degmada Boorama Saleebaan Xasan Xadi. marka adeegta xeertoona qodobkiisa 66aad kaas oo qeexaya in 5 cisho gudaheed uu ku qaban doono 5 taasina ay noqon doonto maalinta isagu uu go'aan ku soo gaaro inuu qabto. sidaa maanta aynu ka wada maqlaynay dhammaanteen xildhibaanada golaha deegaanka halkan ku fadhiya 18 xildhibaan ay ka mid yihiin 3 xildhibaan oo kaliya wuxuu gudoomiyuhu go'aan ku gaaray isla maanta in lagu dhawaaqo go'aanka ah in maayarka golaha deegaanka degmada Boorama siday soo codsadeen ay ridi karaan. oo golaha fadhiya maanta ayaa ka qaaday xilkii Saleebaan Xasan Xadi isagana u yeelanay uu inoo iman waayay. sidaa darteed laga bilaabo saacadda waxa weeyaan Saleebaan xilkii maayaradu way kala noqdeen xaqna way u leeyihiin inay xildhibaanadu in ay la wareegaan. kalfadhigan ayaa waxaa hogaankiisa la wareegay xildhibaan Cabdi Cismaan Dhagaweyne ayaa waxa uu ku dhawaaqay waxaana ku guuleystay gudoomiyanimadii degmada Boorama Maxamed Xuseen Maydhane. waxaana ku guuleystay gudoomiye ku-xigeenka degmada Boorama Cumar Ileeye Jimcaale.
gudoomiyaha gobolka awdal ramaax oo isagu ansixiyey natiijada doorashadani ay ka qabsoontay ee maayirka iyo ku-xigeenka cusub ay doorteen xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada boorama tiradoodu dhan tahay 18 maayirka hore waxaa eriyey 18 xildhibaan isagana waa u yeedhay iyo 2 xildhibaan oo maqnaa saddexdaas baa ka maqnaa 18 kale ay isku raaceen in xilka laga qaado maayirka waxaanay doorteen maayir ay u doorteen ninka la yiraahdo Maxamed Xuseen Maydane oo helay 13 xildhibaan waxa isaguna markaasi iscasilaad sameeyay gudoomiye ku-xigeenkii hore oo hawshan waxa maayir ku-xigeen loo doortay Cumar Ilaaye Jimcaale sida darteed waxa halka ku xalaaloobay iyadoo uu garyaqaankina ag fadhiyo xildhibaanadina dhammaan ay wada fadhiyaan maayirkii iyo maayir ku-xigeenka laga bilaabo saacada inay yihiin Maxamed Xuseen Maydane iyo Cumar Ilaaye Jimcaale fiima yaasiin muuse telefishinka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland magaalada Boorama geesta kale wasiirka kheyraadka biyaha mudane Baasha Cali Jaamac waxa uu kormeer shaqo ku soo maray mashaariicda biyo gelinta ee ka socda degmada Togo Jaale oo ka tirsan gobolkaasi Gabiley markale warka waxaa noo soo diray wariyahayaga Nimcaan Dheeg Ibraahim geesta kale wasiirka wasaaradda biyaha Soomaaliland Baasha Cali Jaamac oo weeliye agaasimaha guud ee wasaaraddaasi waxay indhayn ku tageen mashruuca biyo-gelinta ee degmadaasi Togo Jaale halkaas oo goreynba hadallo soo dhaweynaya ka jeediyeen xogayaha fulinta dowladda hoose degmadaasi Togo Jaale Liibaan Maxamed Jibriil iyo barsaab ku-xigeenka gobolka Gabiley Cali Cabdi Cabdilaahi Cali Case waxaana hadaladoodii ka mid ahaa inay biyihii magaalada soo gaarsiiso imikana meel fiican buu marayaa beebabkii wayna ka soo aragnay si fiican bay shaqadu u socotaa haddana anagu maamulka degmada nahayna waan kormeernaa wixii waajibaadkayga waan ka fushanaa inamada shirkadda had iyo jeer waan la xidhiidhnaa sida shaqadu wadaan waan la eegnaa ka gobol ahaan waan kala shaqaynaa waan ka wada soconaa insha Allah shaqadu si fiican bay markaa u socotaa gobolka iyo degmada Wajaalaba sida la soconay maanta oo dhan waxaynu ku jirnay kormeer biyaha weynagii kala baydna u soo dhagax dhignay soo dhagax dhigtay arab sawaadiyo soo dhagax dhigay ceelkii beebkii la gelin lahaa mashruucan weyn ee ballaaran ee Wajaalana waa kana maanta waan u taaganahay nasiib bay tahay maanta in Wajaale iyo dhammaanba gobolka intiisa badan sida adugu xustay maanta biyihii leeyahay agaasimaha guud ee wasaaradda biyaha Soomaaliland iyo wasiirka wasaaradda biyaha mudane Baasha Cali Jaamac oo halkaasi hadallo kooban ka jeediyay ayaa waxa hadaladoodii ka mid ahaa waxaanu saaray in la helo sourceski ama ishii biyoodkii biyaha looga soo qaadi lahaa Wajaale ceelkaas wuxuu ka qodan yahay ama ceelashaas oo labahay waxay ka qodan yihiin meesha la yiraahdo Botor oo ah buucda Gabil waxa halka laga soo qaadayaa beer oo ah kan inta dhaqso inuu dhamaado insha Allah ilaa labada bilood soo socda biyuhu waa noloshuna waa biyo biyaan lama noolaan karo xukuumadda iyo wasaaraddu waxay u xilsaaran tahay in dadku biyo nadiif helaan oo healthy ah oo la cabi karo marka waxaan ku dadaalaynaa biyaha inaan si dhaqso magaalada u gaarsiino wixii ka dhiman aan dhamaystiro shuruucda nidaamka lagu maamuli lahaana waa Nimcaan Dheeg Ibraahim TV qaranka Gabiley tartanka xifdiga quraanka kariimka ah oo sanad kasta la qabto bisha Ramadaan ayaa si rasmi ah uga furmay masaajidka Cali Mataan ee magaalada Hargeysa iyadoo ay ku tartamayaan ardayda ka kala socota gobolada dalka oo dhan waxaana abaalmarino lagu doonsiin doonaa ardayda kaalmaha hore ku guuleysata tartankaasi warkaasi oo faahfaahsan waxa inoo hayo wariye Saleeman Haybalambad أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم
guddiga garsoorka tartanka xifdiga qur-aanka kariimka ee sanadlaha ee bisha barakeysan ee ramadaan lagu qabto masaajidka caleemataan ee caasimadda hargeysa ayaa waxaa ka soo qayb galaya guddiga garsoorka oo culimo fara badan ka kooban waxaana ka mid ah culimadaasi sheekh ismaaciil cabdi hurre iyo sheekh cabdiraxmaan axmed cabdi waxaanay sharaxaadii ka bixiyeen tartankan xifdiga qur-aanka kariimka sanadkan sheekh ismaaciil cabdi hurre oo ka mid ah guddiga qabanqaabada oo hadal ka jeediyey furitaanka tartankaasi ayaa waxa uu sharaxay tirada ardayda sanadka ka qayb galaysa musaabaqadii sanadlaha ahayd ee Somaliland ardayda gobolada ka socota Somaliland ayaa xulkooda wiilasha halkan la isugu keenaa arday ku hawlan tartanka quraanka oo madaarista gobolada iyo macaahidda gobolada iyo masaajidda gobolada wax ku barta ayaa si ardayda loo dhiiriyo iyana ay isu bartaan ayay sanad walba bisha Ramadaan halkan la isugu keenaa sanadkanna sidii sanadadii hore wiilashu waxay ku tartami doonaan 30 juz iyo 15 oo markay gobolada iyo degmooyinkooda isku soo reebaan ee la soo kala xulo ayaa xulka halkan Hargeysa loo soo gudbiyaa marka la isku daro wiilasha 15 iyo 30 juz arday 64 arday ayaa halkan Hargeysa la isugu keenay waxaanay ku tartami doonaan labada qaybood ee aan sheegay dhinaca kalena waxa isna halkaasi ka hadlay sheekh cabdiraxmaan axmed cabdi oo xusay fadliga uu tartankan qur-aanka kariimkii ugu fadhiyo bulshada reer Somaliland waxaan uga jeednaa ama ujeedadu ay tahay in la dhiirigeliyo qur-aanka Ilaahay subxaanahu wa ta'aala la xafido oo la ilaaliyo oo lagu tartamo oo la xumaad xiiseeyo bishii qur-aanka maadaama ay marno shahrul qur'aan waxyaalaha quraanka ku nooleeyno ay ka mid tahay tartanka quraanka loo qabanayo iyo jawaaska la bixin doono insha Allah ta'ala dhalinyarada ay muxuu ahaa ay taaxiisayaan oo ay u tartamaan ay qaybaan iyadoo jaasada weyn Ilaahay laga helayo tabaaraka wa ta'ala qofka xaraf akhriya oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala xasanaad ka helayo badan ka dhageystaana la mid yahay barasaabka gobolka saaxil iyo maamulka degmadaasi Berbera ayaa si wada jira xariga uga jaray masaajid cusub oo xukuumaddu ka hirgelisay magaaladaasi Berbera sidoo warka noogu soo diray wariyahayaga Mukhtaar Cabdiraxmaan Maxamuud maamulka gobolka saaxil ayaa maanta xariga ka jaray masaajid casri ah oo ay xukuumadda Soomaaliland ay ka hirgelisay magaalada Berbera gaar ahaan xaafadda Barwaaqo oo kamid ah xaafadaha magaalada Berbera masaajidkan ay dhismihiisa ay fulinaysay dekedda magaalada Berbera ayaa sidoo kale waxa ka soo qayb galay culimo kala duwan oo kamid ah culimada waaweyn ee magaalada Berbera waxaana halkaasi ugu horeyn hadal ka soo jeediyay suduwaha wasaaradda diinta iyo waqaafta ee gobolka saaxil Axmed Maxamed Xuseen Farraare waxaanu si weyn ugu mahadnaqay cid kasta oo ka qayb qaadatay dhismaha masaajidkan gaar ahaan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo عندي مساجد الاستثمار بالسوق واليوم كمان دولة Somaliland ملفنا احنا محمود سينايو هو كان ما ليها تكتب قرب الجماعات من محمود ولا هي لا ميزان حسن هاوسارو حلو وقت وين هي هوكتي اولادي سيرو 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 هوكتي waxayaguna sidoo kale halkaasi hadal ka soo jeediyay maarayaha dekedda Berbera Engineer Cali Umar Maxamed Cali Xorxor oo iyagu fulinayay dhismaha masaajidkaasi waxaana uu tilmaamay in loo baahan yahay in la ilaaliyo masaajidkaasi isla markaana la dhowro nadaafadiisa lana camiro dhanka cibaadada xalaaq badan iyo calaasar badan soo kala martay intii hore hada waxaan ugu ducaynayaa oo kale number 1 madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ma ahaatay dowladnimada iyo ammaanta iyo taas tani waa wax ka sareeya waxa weeyaan masaajidkaas isaga ayaa noo waraaday dhismihiisa iyo kharashkiisa iyo hawshiisa iyo soo dhaw
وقفل معنا وقبل العقل هيروح يجلسوا مركا مدحونا دولتي سالا هاجي عافمتكي سالا إلهي تام بقولنا بقولنا حلو سالا الله gudoomiyaha golaha deegaanka Berbera Cabdishakuur Maxamuud Xasan Cidin iyo sidoo kale gudoomiyaha gobolka Saaxil Fahmi Cabdi Bidaar oo iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa Ilaahay uga bariyay inuu miisaanka xasanaadka ugu daro madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ee hirgeliyay dhismaha masaajidkaasi casriga ah ee labada daba ka kooban waxaana ay sheegeen in loo baahan yahay in masaajidkaasi la ilaashado isla markaana la camiro waayo wuxuu rasuulku leeyahay jannada marka uu sheegayo waa waxaan ilaahay waana dhigi maqal waan qalbiga bini'aadamku aanu suurayn karin marka maadaama aan ilaahay dhigna maqal guriga loo ballanqaado ma fadhisaa qalbiga bini'aadamku aanu maarayn karin ama aanu fahmi karin waxaan gurigaan la garanayn gurigiisa iyo biladiisa iyo xaddigiisa toonaan la garanayn intuu leegyahay oo ilaahay ballanqaadaba ilaahay ku bedelaya marka waxaan kusoo guraanadaya kusoo koobaya laga bilaabo iminka waxayna fulay xil culus bayna fulay xaafadda culus baa fulay xilkaan fulay haweenka masaajidka macamiraan cibaado ilaahay ku camiraan wixii ahayd ba waa dhameeyay culimadii iyo intii horeysaa dhameysay aan laba kalmood ma aqrinaya bismillaahi karim haddii ilaahay ogolaado mid weeyaane kelmad luqus oo waxoogaa dhaarsoon oo sheekhii hore uu yidhi oo xagga xaafadda ahaa laba arrimoodba waa daarnaydoo mid mas-uuliyadda de masaajidkan iyagaa iskale xaafad ahaan tacmiirteedana iyagaa iskale inay iyaga laftoodu ku hanuunaanna waa mid looga fadhiyo taa xaafadda iyada saddexdaasaan odhanaya intii midda labaadaan leeyahay waxaa weeye intii hindistay ku fikirtay adduunka gelisay awood ahaan ogolaatay ka shaqaysay caqli ahaan uga shaqaysay intaba waxaan leeyahay jazaakumullah khayr allaha ka abaalmariyo miisaanka xasanaadkana allah idinku kordhiyo culimo kala duwan oo ay ka mid ahaayeen Ibraahim Boqorre iyo qaar ka mid ah culimada waaweyn ee magaalada Berbera oo iyaguna halkaasi hadal ka soo jeediyay ayaa iyaguna dhankooda ballan qaaday in ay culimo ahaan ay ka shaqeyn doonaan kor u qaadista iyo camiraadda masaajidkaasi iyo waliba ilaalintiisa waxaana ay tilmaameen inuu masaajidkan uu ka mid yahay masaajidada ugu casrisan uguna quruxda badan ee ku soo kordhay magaalada Berbera culimada ayaa hadallo farxad leh ku soo dhaweeyay masaajidkaasi waxaan leeyahay ahbaabi fillah ilaahay aanu noqonno oo aan bisha rabadaas ee farakada leh ee aan joogno maanta ku jirnay maanta dubar sii dhamaanaysa mid marayna shalay balatay aynu ka faa'iideysano masaajidda ilaahay camirno inta aynu nool nahay cimrigeena nooga hadhay inta cimrigeena nooga hadhay walba isku day maalkaaga inaad geliso aad naftaadana aan laga waayin masaajidkan casriga ah oo laga hirgeliyay xaafadda barwaaqo ee magaalada Berbera ayaa lagu wadaa inuu ka mid noqon doono masaajidada ay ku cibaadaystaan dadweynaha ugu tirada badan ee ku dhaqan magaalada Berberi Mukhtaar Cabdiraxmaan Maxamuud telefishinka qaranka Soomaaliland Berbera barasaabka gobolka Sanaag ayaa ka warbixiyay xaaladda gobolkaasi gaar ahaan hawlgallada kor loogu qaadayo nabadgelyada gobolkaasi gudoomiyaha gobolka Sanaag Axmed Cabdi Jaamac Falay oo maanta shir sharaa'id ku qabtay xarunta maamulka gobolka Sanaag ee magaalada Ceergaabo ayaa kaga hadlay xaaladda nabadgelyo ee guud ahaan gobolka Sanaag iyo dilkii taliyaha ciidanka koofiyad casta ee gobolka Sanaag oo uu sheegay in ciidanka qaranku ku daba jiraan soo qabashada gacan ku dhiglaha dilka geystay awalan marka hore gobolku waa dhacdadii waxa ugu dambeysay dhacdadii marxuum Saciid Cabdi Warsame oo ahaa gaashaanle ahaana taliyaha koofiyad casta ee ciidanka saddexaad saldhigga saddexaad ee ciidanka qaranka ee ka howlgala gobolka Sanaag gaar ahaan degmada Ceergaabo iyo qaranka uu ahaa sarkaalka aan uga taxsiilinayaa geerida naxdinta leh ee gacanta ka xaddan ay ku dishay waxa aan runtii idinku sheegayaa baadidoonkiisii waa aad baa loo doolay oo rajooyin fiican ma garanno weynahay ilaahay idinkii in la soo qaban doono oo ciidamada kala duwan ee gobolka ka howlgala iyo qoyska uu ka dhashay oo si aan la koobi karaynin oo dareen fiican leh
ay u baadidoonayaan. waxaa kaloo uu gudoomiyuhu digniin iyo baaq ku wajahan adkeynta nabadgelyada u diray dhammaanba shacabka gobolka Sanaag isagoo intaasi raaciyay in xukuumadda Soomaaliland u xil saaran tahay ilaalinta amniga iyo xasiloonida gobolka Sanaag. guud ahaan gobolka waa nabad waxaan dadweynaha ugu baaqayaa gobolka Sanaag gaar ahaan reer Ceergaabo war nabadu yani colaadda wiil baa ku dhintay ee wiilkuma dhasho nabadana oo loo baahan nabadana aad loo xoojiyo nabadda aad loo xoojiyo waayo waa lafdhabar nabadu. ugu dambeyntiina waxaa gudoomiyuhu sharaxaad ka bixiyay waxyaabihii u soo qabsoomay muddadii koobnayd oo uu safarka shaqo ugu maqnaa dhinaca caasimadda jamhuuriyadda Soomaaliland ee Hargeysa. horumarka waddanka arkay meel wax ka socda dardargelinta kulle wadada u baa muhiimadda koowaad ay ahayd iyo inamadii garanaysaay diiwaangelinta ama hablii dhallinyaradii diiwaangelinta laakiin waxawey guud ahaan dalka oo dhan way ka bakan tahay oo waa la helayaa waa barkad khayr maxamuud geedi TV-ga qaranka Soomaaliland Ceergaabo. wararka ay noo soo direen wariyaasheedu goboladu waxa ka mid ah wasiir ku-xigeenka amniga wasaaradda arrimaha gudaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo sidoo kale weheliyo taliyaha guud ee ciidanka ilaalada xeebaha jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa maanta tababar muddo 14 maalmood u soconayay ciidamada ilaalada xeebaha jamhuuriyadda Soomaaliland u soo gabagabeeyay tababarkaas oo lagu baranayay muddadii uu socday sidii loo badbaadin lahaa dhacdooyinka ka dhaca dhinaca badda iyo weliba sidii looga hortagi lahaa qarqoonnada iyo dhibaatooyinka dhinaca badda ayaa waxaa ka taageerayay ciidamada badda iyo difaaca xeebaha jamhuuriyadda Soomaaliland hay'adda dhinaca horumarinta badaha iyo la dagaalanka burcadbadeed ee UCAB Nastar waxaana halkaasi hadallo kala duwan ka soo jeediyay iyo tababarkii ay qaadanayeen qaar ka mid ah saraakiisha ciidanka ilaalada xeebaha ee saldhigga Berbera. halkan waxaa ku arkayseen xoogay tababaroon muxuu ahaayay halkan ka wadnay in muddo ah oo imika muxuu ahaayay dhowr sitmaana waxaanu wadnay tababar oo nuxurkiisu ugu weyn yahay sidii wixii badda ku dhacay loo badbaadin lahaa taasoo aan muddo wadnay waxaanu ku soo xidhnay maanta aanu soo badbaadinay doon degtay dadkii saaraa aanu soo badbaadinay si fiicanna ugu guulaysanay taasoo aanu isku xisaabayno inaanu meel kasta oo biyaha Soomaaliland wixii laga soo qayliyay ee muxuu ahaayay aan u gurma karo. taliyaha guud ee ciidanka ilaalada xeebaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane xiiran oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa si weyn u hambaliyay ciidanka ilaalada xeebaha iyo weliba tababaradaasi kala duwan ee ay barteen isagoo si weyn ugu mahadnaqay cid kastoo taageertay ciidanka ilaalada xeebaha ee Soomaaliland. waa bilow waxaan gaarsiinaa ka doonaa fadhiyada dambe gaarsiin doonaa hadii la ka dhigo iyadoo kuwan laftooda noqon doonaan dhulka aan la teegin dhulka adiga iyagu macallimiin ka noqon doonaa hadii la ka dhigo waxaan rajeynayaa si wanaagsan iyo anaga hore soconna maadaama ummaddu ay badda inaga lagu jiifto wixii naga dhimana ummaddu wadisin doonaa insha Allah. wasiir ku-xigeenka amniga wasaaradda arrimaha gudaha jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdidaahir Camuud oo isagoo halkaasi ka hadlay ayaa ku hambaliyay ciidanka ilaalada xeebaha ee Soomaaliland tababarkaasi ay qaateen ee la xiriira badbaadinta dhibaatooyinka ka dhaca dhinaca badda. Iyaguna waxaan nala saacadeed ku jiray badda annaga iyo dhowr dooyood ayaa ku jiray badda ku jiray waxa iftigan uu ku saabsanaa sidii loo badbaadin lahaa dadku qarraqmay badda ku qarraqmay 14 cishaa soo wadeen waan arkayaa in tacliinta aad ka barateen maagaad ka barateen iyo macallinkiisa aad ka barateen inay tahay tacliin aad iyo aad nahantii ku fiican. waxaana ciidanku halkaasi ay ku soo bandhigeen waxyaabihii ay ka faa'iideysteen tababarkaasi muddada 14 maalmood u socday iyagoo halkaasi soo badbaadinayay dad iyagu markaasi ay ka dhigayeen inay ku qarqoomeen badda. geesta kalena mas'uuliyiinta gobolka Saaxil ayaa maanta furay mashruuc kor loogu qaadayo aqoonta dadka ku dhaqan xeebaha bariga iyo galbeedka ee gobolka Saaxil kaas oo ay soo qaban qaabiyeen ururka dhalinyarada ee UFENCO iyagoo ay taageerayso hay'adda UNICEF. tababarkan oo ka qabsamay hotel Barwaaqo ee magaalada Berbera ayaa halkaasi waxaa hadal ka soo jeediyay kana warramay tababarkan iyo ahmiyadda uu leeyahay dadka ku dhaqan deegaanada xeebaha ee aanay cid gaari karin. agaasimaha ururka UFENCO Cabdicasiis Saciid Saalax waxaanu tilmaamay tababarkan uu socon doono muddo 3 sano ah isla markaasina ay ka faa'iideysan doonaan sanadkiiba in ka badan 6,000 oo arday oo wax lagu bari doono isla markaana lagu celin doono dugsiyada. waxay sidoo kale tilmaameen tababarkaasi ay sidoo kale barbar socoto sidii loo hirgelin lahaa dhismayaal cusub iyo dayactiro lagu sameeyo dugsiyada ku yaala deegaanadaasi. furno mashruuca horumarinta cilmiga ee carruurta aan iskuulada dhigan la doonayo in iskuulada ay jaaniska iskuulada ay ku dhigan lahaayeen helaan run ahaantii waa ujeeddo iyo hadaf aad u ballaaran oo bilow inoo ah maanta. mashruucan waxaa iska kaashaday dowladda Soomaaliland
UNICEF waxaa fulinaysa hay'adda wadaniga ah UFANCO gudoomiyaha golaha deegaanka ee Berbera Cabdishakuur Maxamuud Xasan Cidin iyo gudoomiyaha gobolka Saaxil Fahmi Cabdi Bidaaro iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa si weyn u soo dhaweeyay mashruucaasi wax lagu barayo carruurta iyagoo ku dhaqan deegaanada xeebaha bariga iyo galbeedka waxaana si weyn ugu mahadnaqeen ururka UFANCO iyo sidoo kale hay'adda iyaguna taageeraysa chance koowaad waxa weeyaan inaynu dhammaanteen ka faa'iideysano mashruucan qodobka labaad ee aan doonayo inaan ka faa'iideysanaa oo ku kala faa'iidnaa waxa weeye waalidku maanta wuxuu dareemi karayaa ilmihiisa wuxuu bartay iyo ilmihiisa aan waxu baranin farqiga u dhexeeya tan maxaa la yidhaha waa hoos loogu foorarsanayaan waxaa dhici kara marka haddaad si fiican u gashaan ood wacyigelinta laydin diraya aad si fiican u adeegisaan waxaa dhici kara 40 inaad ka heshaan 10 keliya nin walba haddii 10 laga keeno oo 4tii hore iyo 10kaas isku tagaan waa 14 khasaare maaha xubno kala duwan iyaguna ka socday ururka UFANCO iyo hay'adda UNICEF oo hadal halkaasi ka soo jeediyay ayaa tilmaamay inuu mashruucan uu taageeri doono ubadka yar ee soo koraya isla markaana wax weyn ka tari doono dhinaca aqoontooda wana mashruuc ugu horeeyay ee noocan oo kala ee kor loogu qaadayo aqoonta dadka iyagu danyarta ah ee ku dhaqan xeebahaasi fog ee aan la gaari karin ee ay soo qaban qaabiyaan ururkaasi Mukhtaar Cabdiraxmaan Maxamuud telefishinka qaranka Somaliland Berbera isuduwaha wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee gobolka Buuhoodle ayaa deeq agabka ciyaaraha gaarsiiyay kooxaha kubadda cagta ee ka dhisan magaalada Buuhoodle ee xarunta gobolkaasi Buuhoodle isuduwaha wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha iyo dalxiiska Somaliland ee gobolka Buuhoodle Maxamed Cabdiraxmaan Xiis ayaa qalab sportis guddoonsiiyay 7 kooxood oo kamid ah kooxaha ka ciyaara magaalada Buuhoodle xarunta gobolka Buuhoodle deeqdan qalabka ciyaaraha oo ay dhalinyarada soo gaarsiiyeen dalada dhalinyarada Somaliland ee heer qaran ee Sooyo munaasabad kooban oo lagu qabtay garoonka Xabado Stadium ee magaalada Buuhoodle oo deeqdan lagu kala wareegayay waxa ka hadlay isuduwaha wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Somaliland ee gobolka Buuhoodle Maxamed Cabdiraxmaan Xiis wuxuu ka warramay ahmiyadda deeqdani ay ka tarayso kor u qaadida ciyaaraha bisha barakaysan ee Ramadaan maadaama lagu guda jiro tartan ciyaareedkii bisha lagu xusi jiray waxaan fariin ballaaran u jeedinayaa dhalinyarada gobolka Buuhoodle adduunka maanta waa wax qabad cidii wax noo qabanaysaa inagu waxbaan la qaybsanaynaa insha Allah bidmillaahi kariim dhalinyarada dalada Soonyana waxaan ugu baaqayaa in ay waxa ay noo qabatay iyo wax ka badan baanu ka sugayno waxay isna madasha hadal kooban ka jeediyay isuduwaha nabadeynta gobolada bariga Somaliland Cabdifataax Cabdirasaaq oo ka mahadnaqay deeqdan miisaanka ugu fadhida da'yarta reer Buuhoodle ee ay soo gaarsiisay dalada dhalinyarada Somaliland waxaan leenahay wayna soo gaadhay agabkii sportiga aad ugu tala gasheen gobolka Buuhoodle aad iyo aad baan ugu mahadsantiin wana soo gaarsiiyay isuduwihii wasaaradda ciyaaraha gobolka Buuhoodle maanta waxaan dhex taaganahay garoonkii Xabado Stadium waxaan leenahay garoonkii maanta inaan nalooga shaqeeyo katrabil la geliyo wuxuu yara kala dhaadheeraan baa ku jirtay laga hagaajiyo baan uga baahanahay waxa iyaguna madasha hadal mahadnaqa iyo guubaabaa ka soo jeediyay xubno ku hadlayay kooxaha qalabkan sportis la guddoonsiiyay oo ka mahadnaqay inay baahi weyn u qabaan inay helaan deeq noocan oo kala ah oo ay soo gaarsiiso xukuumadda Somaliland isuduwaha wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reemiyiga ee gobolka Saraar ayaa soo kormeeray xarumaha lagu xanaaneeyo duurjoogta gobolkaasi Saraar sida warkan magaalada Caynabo nooga soo diray wariyahayaga Jaamac Boodacde isuduwaha wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reemiyiga ee gobolka Saraar Mudane Maxamed Jaamac Ciise ayaa kormeer ku soo maray beeraha iyo goobaha kala duwan ee lagu xanaaneeyo xayawaanka kala duwan ee dhanka dalxiiska ee ku yaala gobolka Saraar isuduwahani waxa uu si gaar ah u soo kormeeray xarada gaarka ah ee lagu xanaaneeyo gorooyinka taas oo ku taala gudaha degmada Oog xaradaasi oo dad muwaadiniinihii ay ka samaysteen isla markaasina ay geliyeen tabac fara badan sidii ay u sameyn lahaayeen xero gaar ah oo lagu xanaaneeyo gorooyinka isla markaasina ku taala gobolka Saraar isuduwaha wasaaradda deegaanka ee gobolka Saraar Maxamed Jaamac Ciise waxa uu markii dambe ka xog warramay sida loogu baahan yahay in la xanaaneeyo guud ahaan xayawaanka kala duwan ee dhanka dalxiiska ku fiican ee gobolka Saraar isagoo sidoo kalena tafaasiil dheeraad ah ka bixiyay qaybaha kala duwan ee dhanka deegaanka ee uu ka kooban yahay gobolka Saraar iyo xayawaanka kala duwan ee ku nool Bismillahirrahmanirrahiim marka aad iyo aad u salaamaya wariyaasha aad iyo aad uga howlan si ugu kurgalaan gobolkan
وآد أي أدنى وحنا سما دارهم سلامة يا تيفي غيرنا ممكن مركز قبل كنا قبل آدي آدو بالعرن وقبل سقوط شراء ديجان هان مركز اللي يقول ديجان ماذا السومال لانكو ورحت البدن وحوك كوبين هاي وروه دوحين سيدا أي كم يدين سيدا سدعجيد دو حدا يقول عن شلالو سرار وعانة السومال لان بدن كذي لأن يرد يعدل بتقانه وآد أي وقف في عين حوله لما بروحهم كذي حولها النور واحد كانوا قبل كنا عام كذي هاي سيدا دركت جريو يمكن رحنتها لأن ديجانو ذاك اللي السومال لان أنا تشوجن واحد كانوا كو عين كذي هاي سيدا جرنوكته سيدا هذا اللي بكون باش اللي ياهو دايرة سيدا باش إن حيوان كله درجوكته آد كوقال جاها سيدا هربعتك وآد يا ذو بدن أيو كوبين هاي أي ديجان كان عام كوي هاي بدن واحد يكون نول واحد لا بدل ليها بدوي وكنت الله شيء 10 كيلومتر كتير حاجة بريء كحيته بدأ أو كله أو كنوا ليها كلونكو sida hadda lagu kuuriyay xayawaanaadka kale ee dabiiciga ah biyihii beerihii nooc walba laga heli karo ugu dambeyntii suduwahani waxa uu fariin u diray guud ahaan bulshada kala duwan ee ku dhaqan gobolka Saraar oo ugu baaqay inay deegaankooda ilaashadaan si uu noqdo mid bilic leh isla markaasina ay ku noolaan karaan guud ahaan xayawaanaadka kala duwan ee dhanka dalxiiska u fiican kan waxaan ugu baaqayaa inay ilaaliyaan deegaanka ugaadha oo aan ilayn sida imka guriyooyinkaas waxay ku nool yihiin gobolka cillaysa ma jiro وحويان خيرات الطبيعية إلى هاي كمان نستقبل كان إننا قلنا إنه نكفى هذه السنة وحويان هيبدأ الدلك أي كم التاي وقالوا وكان هيبدأ هذه اللي قاعده وقناعسي قال لقيه عليه ودلك لقيه عليه وإحنا قلنا يا قبل كهيبدي سي دلك وهيبدي سي بس قلنا سا وهذا يوحيا حنا سقطان كاين لقيه عليه جامع بود عدد تلفزيون كغرنك جمهورية سوماليلاند مدارة عينابي حرونتا قبل كسرار magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer waxa ka bilaabmay tartan ciyaareed lagu xusayo maalintii ay Jamhuuriyadda Soomaaliland xorriyadeeda ka qaadatay gumaystihii Ingiriiska 26 bishii Juun ee sanadkii 1960 wareeg lagu xusayay xuska sanad guurada 55aad ee ka soo wareegtay markii ay xornimada qaadatay Soomaaliland 26 Juun 1960 ayaa xalay laga furay garoonka roogga ee Togdheer Football Academy ee magaalada Burco koobkan lagu xusayo maalintan qaran oo maalgeliyay Maxamed Faarax oo kamid ah ciyaartooyga dhalinyarada ah ee gobolka Togdheer ayay ka qayb qaadanayaan 8 kooxood oo kamid ah kooxaha kubadda cagta ee magaalada Burco Abdinaasir Cali Axmed Beder oo ku hadlayay afka maamulka garoonka ciyaartani lagu qabanayo Maxamed Faarax oo isagu ah ka maalgeliyay wareegan iyo xubno ku hadlayay kooxaha ku kulmaya ciyaartan ayaa iyaguna halkaasi ka hadlay kana dareen celiyay ciyaartani waxa ka furmay garoonka ciyaarihii state kooxood oo araga laba gruuba waxa la maalgeliyay Maxamed Faarax waxa lagu qabanayaa garoonka Togdheer Football Academy tartankan caawa furmay aniga dhalinyarada u qabtay oo muxuu ahaayay koob kan dhigay kooxna waan wataa caawana waxa ka mid ah labada kooxood ee muxuu ahaayay halkan isku ku kulmaya ayaan kooxan wataa ujeedada kalena ka dambeysay waxa weeyaan inaan iska dhalinyaradu isku dhiirigeliyo oo muxuu ahaayay dhalinyarada waxay madadaalo iyo waxaasum anigu waxaan ka mas'uulahay kooxda Balaasa aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan ka qayb galno tartankan waxaan aad soo dhaweynaynaa koobkan la qabanayo bisha Ramadaan oo maalgeliyay Maxamed Faarax haddaan nahay tiimka Burco Brenton waxaanu leenahay alla dhiirigeliyo ciyaarahaas ana la kordhiyo waa ciyaartii labaad ee toddobaadkan gudihiisa ka bilaabantay garoonkan Togdheer Football Academy ee magaalada Burco Mustafa Ismaan magaalada telefishinka qaranka Soomaaliland warkii oo kala socotay telefishinka qaranka Soomaaliland xaruntiisa magaalada Hargeysa aqaybteeda qiimaha mudan ee hawada nagala xidhiidha intaasi ayuu ku eegyahay tan intaan ku kulmi doono warka xiga waxaan ku dhaafayaa assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh